Bafar waa mid ka mid ah nidaamka difaaca dalka Iran kaasoo shaqada bilaabay sanadkan 2019. Gantaalahan Bafar ayaa waxay tiigsan karaan masaafo gaadhaysa 320 kiiloomitir iyagoo 200 oo kiiloomitirna ku burburin kara hadafkooda. Dhanka korona waxay tiigsan karaan 75 kiiloomitir. Bafar ayaa waxay awood u leedahay inay hal mar kantaroosho 6 jiho iyadoo halkii marba ridi karta gantaalaha nooca loo yaqaan Sayyad 12 ka mid ah markiiba. nidaamkan Bafar waxa uu ka horumarsan yahay gantaalaha S-300 ee dalka Russia waxaana aad ugu dhow yahay nidaamka S-400 ee isla dalka Russia. ummad ku noqon mayso marka ay isu dhiibaan cadawgeeda, midaasna way garanayaan. cid kastoo na soo hujuntaan waxaan ka hortagnaa wajigayga. qaar ka mid ah gantaalahan ayaa waxaa lagu tijaabiyay gudaha dalka Iran kuwaasoo awood u leh in ay soo ridaan sida diyaaradaha droniska iyo diyaaradaha kale istiraatiijiga duqeynta geysta iyo waliba diyaaradaha raadar ka baxsada. waxay kaloo awood u leeyihiin in ay soo ridaan sida gantaalaha plastiga iyo waliba gantaalaha cruise missile-ka. waxaan cadeynaynaa inaan gaarnay horumar xagga dhanka tiknoolajiyadda iyo waliba horumarinta gantaalaha, taasoo aan awood u leenahay inaan sameyno gantaalo difaac iyagoo gantaalahaasna ay tiigsan karaan masaafooyin aad u sareysa iyo waliba gantaalo kaleeto oo wadanku ku tallaabsaday markii la saaray cunaqabatayntaasina ay u noqotay faa'iido dhanka xagga kale ah. waxaa soo kartaa Iran inay tahay dowladda ugu awoodda weyn bariga dhexe sababtoo ah cunaqabataynadii iyo waxyaalihii la saaray kama aysan joojin horumarinta awooddeeda dhanka military. sanadkan oo keliyana waxay shaqada soo geliyeen diyaaradda jiilka afraad ee Koosar, gantaalka Huweysi iyo gujidka Fateh iyo aaladda 15aad ee Qordaad ee raadarada oo lagu daray gantaalaha Bafar.